wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo arrimaha dib u heshiisiinta waxaa sharaf u amaantay oo 4 bisha Maars 2023 inaan hortiina ka akhriyo akhriska koowaad ee sharciga ah ee hindisa sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha mudanayaal iyo marwooyin dadkeenu waxay ka mid yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof oo dunida ku nool oo aan aqoonsi rasmi ah lahayn waxayna dadkeenu ay aqoonsi la'aanta ku waayaan xuquuq badan oo ay lahaayeen ha noqoto xuquuq dhaqaale iyo kuwa bulsho iyo kuwa siyaasadeed marka qofka muwaadinka ahi waayo aqoonsi iyo wax cadeynaya jiritaankiisa wuxuu magan u noqonayaa cid kale oo mararka qaarkood laga yaabo in raadinteeda waqti dheer ay ku sababto la og yahay maalmaha qofkii la xiraba yaa ku yaqaan leeyahay qofkii meel shaqo laga siinayo yaa ku yaqaan hebelka keenso waxaan maanta hortiina u yimid inaan akhriska koowaad marsiino hindisaha aqoonsi hindisa sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha waan rajaynayo inaan ka wada shaqeyno in soo saaristiisu ay xal u noqoto sugitaanka jiritaankeena qofeed iyo aafooyinka kale oo la xiriira oo ay ka mid tahay waxay afka qalaad ugu yeeraan dhibaatada garanwaaga ama identity crisis dadkeena iska haysta xataa kuwa dibadaha iska dhiibaya sidaas awgeed waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka sheego ahmiyadda uu leeyahay sharcigan uu u leeyahay dowladnimadeenna uu u leeyahay qofka u dhashay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo midka uu leeyahay mucaamalaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha kaleba ahmiyadda koowaad oo dowladnimadeenna u leeyahay waxay tahay hirgelinta nidaamka aqoonsigu wuxuu wax badan ka bedeli doonaa habka aan u shaqeyno wuxuuna dhiirigelinayaa la dagaalanka musuqmaasuqa amni darrada iyo ka hortagga argagixisada wuxuu udub dhexaad u yahay nidaaminta canshuuraha oo muwaadinka la yaqaan gurigu degan yahay qofku yahay iyo la socodka xaaladiisa wixii iska bedela ama shaqo ama wax kasta waxa wuxuu kaalin mug leh ka qaadanayaa maareynta adeegyada bulshada iyo daadajinta adeegyadaas iyo sidii loo gaarsiin lahaa dadka u baahan wuxuu saldhig u yahay in dalkani u gudbo doorashooyin aadka lagu taamo ee qof iyo cod oo ay asaas u yahay diiwaangelinta codbixiyaasha ahmiyadda kale oo uu leeyahay qofka Soomaaliga waxay tahay aqoonsigu wuxuu si gaar ah ahmiyad ugu leeyahay qofka Soomaaliga waana xaq asaasi ah oo qof kasto adduunka ku nool uu leeyahay inuu helo identity card in dawladdu ay siiso qof walba oo inaga mid ah aqoonsigu wuxuu fududeynayaa qofka socodka iyo socdaalka wadanka gudihiisa xilli ay adkaatay in la kala garto dadka shacabka iyo kuwa qaswadayaasha kooxaha argagixisada ka mid ah aqoonsigu wuxuu ka caawinayaa qofka sugidda hantidiisa ma guurtada ah wuxuuna ka caawinayaa lahaanshaha afkaarta ganacsi oo ah batantaha sharcigani oo u baahan yihiin sharciyo kale oo la xiriira lahaanshaha afkaarta iyo hantida wuxuu wax badan ka geysan doonaa dhiirigelinta hal-abuurka ganacsiga wuxuuna noqon doonaa matoorka dhaqaajiya ganacsiyada digitalka ah ee dhallinyaradeenu baryahan dambe ee aadka u galeen ahmiyadda ganacsiga Soomaaliya uu leeyahay si guud waxaad ka warhaysaan sida ay aqoonsi la'aantu caqabad ugu noqotay shirkadaheena isgaarsiinta bangiyadeenna iyo xawaaladaheena waxaadna ka warhaysaan in lacagaha xawaaladaha oo dibadaha laga soo diro dhowr jeer in la hakiyo aqoon la'aanta loo qabo qofka loo dirayo awgeed iyo su'aalo marka la weydiiyo xawaaladaha qofkani qofku yahay ID card iyo wuxuu haysto inaysan ka jawaabi karin bangiyadana waxay in badan nagala hadleen sidii loogala shaqeyn lahaa suurtagelinta ogolaanshaha macaamilka know your client ama waxay ugu yeeraan afka qalaad haddii aan hirgelino nidaamka aqoonsi waxay ganacsatadeenu fursad u heli doonaan ka faa'iideysiga dadaalada dawladdu ugu jirto inay ku biiraan ururada heer gobol oo hadda East African iyo waxaas socotay marka dadka Soomaaliga waxa lagu aqoonayo waxay noqonaysaa dadka dhan baasaboorramada wataan waxay noqonaysaa ID cardka qofku uu wato muwaadinka oo si sharciya oo sifo sharciya ku soo baxay sharcigan ay jidkii loo soo maray dib u saxidiisa si aan nidaamka aqoonsi u hirgelino waa inuu ku dhisnaado asaas sharci ah oo adag
waxaan rajaynayaa haddii aan sharcigan aan hawshiisa dhamayno in faa'iidooyinka aan sare ku soo xusno dhan sanadkan gudihiisa ay noo bilaaban doonto haddii la yiraahdo. haddaba waxaa dhacday in golihii shacabka ee baarlamaankii tobnaad uu ansixiyey 2020kii balse aysan suurtagelin inuu aqalka sare soo maro qaab waafaqsan habraaca dastuurka kumeel gaarka uuna saxiixay madaxweynihii hore 31dii bishii 12aad 2020kii balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu soo saaray xeer madaxweyne oo lagu burinayo sharciyo dhowr ah oo ka mid ahaa sharcigan hindis sharciyeedkan taariikhdu markay ahayd 22 November 2022 sidaasna uu wasaaradda dib ugu soo noqday in dib loo saxo oo laga shaqeeyo tan iyo taariikhdaasi waxaan gelinay la tashiye badan oo aan uga gol lahayn inaan si cilmiyeysan dib ugu eegno sharciga oo aan waafajino tilmaamaha caalamka la isku raacsan yahay ay ku dhisan yihiin aqoonsiyada ummadaha kale inagoo sidoo kale la hubinayo in duruufaheenna noo gaarka ah dalahaan uu la jaan qaadi karo ay la jaan qaadi karaan tilmaamahaas waxaan qabanay laba wada tashi oo aan la yeelanay sharci yaqaano madax bannaan oo Soomaaliya sidoo kale waxaan la tashiyo la yeelanay bulshada rayidka iyo khubaro caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha aqoonsiga diiwaangelinta waxaan ku soo koobnay qodobada soo socda sixitaankii aan sameynay kii hore kan farqiga u dhaxeeya sharcigan waxaan ka dhignay mid ka baaxad weyn kii hore wuxuuna hadda ujeedkiisu yahay inuu qeexo dhismaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta isla markaana uu tilmaan ka bixiyo habka uu u shaqeyn doono nidaamka aqoonsiga qaranka waxaan ku darnay qodobo la xiriira maamul wanaagga iyo madax bannaanida hay'adda iyadoo la xoojinayo isla xisaabtanka kii hore haddii aad aragtaan ayaad farqiga u dhaxeeya hadda sharci uu noqonay hindis sharciyeed ama sharci yani la kabyo badan oo isla xisaabtani ay ku dhex jiraan uu ka duwan yahay kii hore saddex waxaan ku darnay waajibnimada ilaalinta xogta dadweynaha privacy-ga oo ah qodob aad muhiim u ah qofka xogta laga diiwaan gelinayo muwaadinka waan ku darnay awal kuma jirin afar guud ahaan waxaan waafajinay tilmaamaha hirgelinta nidaamyada aqoonsi ee caalamka ee loo yaqaano ID for development ID4D oo aan u malaynayo wasaaradda qorsheynta iyo sustainable development-ga inuu ku jiro guud ahaan hindis sharciyeedkan wuxuu ka kooban yahay 4 cutub iyo 31 qodob asagoo dhanba waa 10 page cutubka koowaad waa qodobo asaasi ah wuxuuna ka kooban yahay 8 qodob oo inta badan asaaska iyo kulligu ka hadlaya hay'adda iyo ujeedooyinka laga leeyahay cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa dhismaha hay'adda cutubka waana 2 qodob cutubka saddexaad howlaha awoodaha iyo qaab dhismeedka hay'adda oo ka kooban 16 qodob ugu dambeynna cutubka afraad oo qodobo qubana wuxuu ka kooban yahay 5 qodob haddaba hindis sharciyeedkan wuxuu ku qoran yahay luqad sharci oo aad u fudud wax kasta kuma dhamma shaqadan inay muddo dheer kadib waxaan rajaynaynaa inay dalka dib uga hirgasho oo 32 sano dadka Soomaaliyeed ma lahayn sidaas awgeed marka practically hawshan loo dhaxgalo wax badan ayaa soo bixi doona oo aan rajaynayno review-ga iyo dib u eegista sharcigan inay qayb ka noqon doonto laakiin marka hadda asaaskiisa qodobadii asaaska u ahaa ama saldhigga u ahaa oo dhan waa ku soo wada dar codsiga gunaanad wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay mudanayaasha senatarada ee halkan jooga ee aqalka sare aan ka codsanaynaa hawshan jidkaas dheer soo martay oo 4 sano 5 sano la soo dhaafay shaqadan si un baa loogu jiray waxaan ka codsanaynaa maantay in ay hindis sharciyeedkan ayagoo ka gudanaya waajibkooda dastuuriga inay noo fududeeyaan inta kal fadhigani uu furan yahay maadaama shaqooyin badan ay nooga xiran yihiin oo aan rajaynayno sanadkan bartamihiisa bisha 7aad ama bisha 8aadba inaan hawshan guda galno inay noo fududeeyaan kal fadhigan gudihiisa inta lagu jiro wax badan ay ku xiran yihiin oo shaqadaanina sharcigan inuu hirgalo hay'adda xitaa dhismaheedii iyo kulli wixii oo dhan way ku xiran yihiin waxayna ku jirtaa arrimahan ay ku jiraan sida saaxiibkay been wasiirku uu sheegay benchmarkiska waxyaalaha u ah
deyn cafiska oo ah dadka Soomaaliyeed in la aqoodaba qof walbaaba qofku yahay dhowr jeer baan tusaale u soo qaatay in halkan nabad sugidda laga shaqaaleysiiyay 2018 oo ilka casal la yiraahdo oo loo shaqaaleysiiyay oo loo qoray macallin buu ka ahaa jaamacadaha Muqdisho laakiin kooxdan argagixisada ku jiray waxa loo shaqaaleysiiyay ilka casal inuu ilka casal raadiyo asaga naftirkiisa la isku shaqaaleysiiyay 8 bilood buu israadinayay markii dambe qof kale oo la qabtay ayaa sheegay inuu yahay qofka ninkaas macallinka oo halkaas jooga saasa inuu yahay ninka amiirka oo qaraxyada magaaladan iyo dilalka ugu badan ka fuliya haddii qofkaas la aqoon lahaa oo identity-giisa la garan lahaa la iskuma direen asaga waqti badanna hay'adaheennii waaweynaa ma soo dhexgaleen wana suurta gasheen sidaas awgeed waxaan mar kale ka codsanayaa senatarada sharafta leh iyo guddoonkaba in sharcigan kalfadhigaani intuu furan yahay naloo ansixiyo waa sharci runtii dalka faa'iido iyo wax weyn ugu fadhiya aadna ogtihiin in dadkeena dibadaha xitaa iska dhiiba inay ku qaadato waqti ka badan waqtiga dadka kale kaliya qofka identity-giisa aan la garanayn Soomaali inuu yahay Eritrean ba ama Ethiopian ba ama dalka lagu dhashay wax sugaya ma haystaba marka dal iyo dibadba meel kasta qofka Soomaaliga muhiim buu yahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin fursadana la siiyana waa ka mahadcelinaynaa